إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق. xukunka uu leeyahay waddan gaal in la aado maxay tahay asalku horta waxa waaye gaalna inuu deegaankiisu gooni u ahaado muslimna deegaan gooniya u lahaado sababtu gaalku waa jiran yahay jiro jahannamo lagu gelaayo waa istaago gaalnimo la yidhaah nin marka noocaasa inaad dadka ku darsatama waa in la karantiilo yaa karantiil ma taqaan waa iyowna nagu qabadsiin balaayadiis uuna soo gudbin nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine qabsaday oo macnaha dowladda islaamka uu ka dhisay in la soo haajiray ay waajib noqotay oo muslimka la badiyo meeshaas makata almukarama laga soo haajiray daarulkufri ahayd meel gaala degantahoo nabi maxamed calayhi salatu wasalaam laga qaxiyey sooma maqlan iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim madiinana waxay ahayd daarul islaam ahayd maka markii la furtay sanadkii 8 oo min alhijra maxay noqotay laa hijrata bacda alfatx maxaa yeelay waxay noqotay daarul islaamay noqotay macnaha meel muslim ka taliya iyo meel gaala ka talisa iyo isaan u kala fahantaa ramowta asalkii barnaamijka hadda wixii waa isku yaaceenba goormaaba u dambaysa meel waxa waa gaaladii aba buuxda idaana u talisa meelna muslimkii uun ayaa buuxa gaalkii una talada ka soo qaatay gaalkii wakiil uga yahay caalam islaam soo hadda u badan ilaah ma jiro noloshuna itusi ama itaabsi way 21 sana taladaas nala ku dul haysa doctiinba dad badana cudurkaas ku dhaco hadda waxay ku leeyihiin biri samaadka arimo ilaah ma jira biri samaad waa macnaha dadkii ku asaamo magda maxay yeelay wuxuu fiirihay nalalkan iyo jidadkan iyo waxyaalahaas uu fiirihay magda iyo shaqooyinkan ilaa la siihay soo ma garan wixii uu marka diinha awal ma dhadhamin badan khadamaadkaasi adeegyadaasna waa waay inta badan sooma biri samaadkii ku leeyahay marka ala kulli xaal muslim iyo gaal waa inay degaan kala lahaadaan illa tafcaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabiir hadaadan samayna oo muslimna oo san muslim gacashan oo na tolaysan gaalna gool oo san gacashan waxa dhacaysa fitnatuna dhacaysa wa fil ardi wa fasadun kabiir fasaad weyna waa dhaca maantana waxa yaalo haddii wax barasho la yiraahdo gaalida loo aada waa nimanka aqoonta la siyaasa aqoonyahan loo bixiyay adiga haddii ganacsi la yiraahdo inta la aada haddii la yiraahdo maxay ahaaday wax barasho xagee la aada siyaasadda iyo barnaamijka inta laga keena gaalada laga keena marna bariya la gaalada bariya la keena marna gaalada galbeedka inta kale marka guud ahaan noloshaas horta isku dhex jirta dadkii haddii aad fiiriso noloshoodiiba xaggay ku xirantahay gaal kaliya ku xiran asna waa fahanyay gaalka markaasaa waxaa lagu leeyahay waa lagu cunaqabatay haddaad wax yar diido kor iyo bari waxaa laga xirayaa lagu leeyahay bad iyo bari haddii laga xiraayo war waa khatar aad leedahay bal xal laga rabaa waxaa laga rabaa qaanuunka qaramada midoob gaalada midoob in qaanuunkooda u hoggaansataa laga rabaa lagu leeyahay waa naftuugay marka waxaa ku tarahay diintina kama tigi karo nolosha noocaan maxamil ma kara waa mogta diintii waxay noqotay marka aakhiru zamaan soo qor dib loo gacanta lagu hayo haddaad daysana waa diin la'aan haddaad sii joogtane oo sii haysatane waa eri iyo maaragtay waa lagu raacday asaa lagu leeyahay waa kan meel aad tigi karta meel la arkaa lagu qabto qub war waxa adduunka war waa sidee nimankan yahuud wax ka xun ma jiraan waa dhulkooda maraane yahuud qaanuunkeeda yaa shaqeeyaa leeyahay hawadooda yaa shaqeeyay adiga caada yaa wax ka barta boqolato ma afar mar aad mar ilmi ka tagto ilmi waa kuwan ku yaadhay aniga waxaan rabnaa maadooyinka cilmiga quraanka cilmi uma yaqaan maadooyinka cilmiga anagana waa naga sii socota hadda waad aragtay markii la jirto quraan la saarid hadda wala keenini ma yaan waa meel walba tagtaraadku wadaadadii ku akhri jiray waxaad arkay ku leeyahay keenina la jirto ma adiga oo sheeqo maashan waa banaantay oo quraanka cad ku diidado kalsooni badan kuma qabiyo markii in la soo wareejiyo meel kasta la geeyo intii uu markaa u suurtagal u leeyahay mugan quraan waxaan ahayn male
أول waxaan haynaa jira moogta mukaan quraan waxaan hayn male على كل حال ودن قالوا قفك أسفراي وكم ممنوع إنه أسفر علماء كهذا الشيء الدليل دليشدين وحكم ذا آيات كاسد أنا قريني إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير آيات داسا كمذا إياك وكالو فربضا هجرة داس قال ولا سوها جري قال له قحاي ومسألة عسبوع وحي هذا sidoo kale xadiidkii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam biryanka ah qofkii gaala la degan biryanka ah qaar waxay ku fasireen waaba gaaloobaba qaarna waxay ku fasireen maye waa xaaraamuu ku dhacay ma garata taasna marka waa sidaas waxaa jirta marka waxay soo istinoodeen dhowr shardi qofkii hela waa maxay diinta islaamka horta si fiican ugu yaqaano oo aan la fidnay karin sida badana laga warramaa qofka diinta yaqaano laakiin asbaabta waa la rabaa mugta soo adugu hadda dhimayso laxan jiriya inuu horta diinta islaamka si fiican u yaqaano inuu rumaysan yahay haddana labadaas inuu horta haysto qaala aladiina uutuu lcilma waaliimaan laqad labidtum ilaa dadkii aakhare badbaada labadaas tilmaamaday leeyihin waxaa kaloo shardihay yidhaahdeen qofka aadaya meesha wax aan laga helin meesha muslimku degan yahay waa inay ahaadaan wax laga jirinayo oo waa maxay maalan waxay leeyihiin wax muslimka anfacaya oo farsamo ah ilaan waa tumaallo nimankaan moogtahay waa tumaallo shanta oo fiitada lagu sheegayo waa shanta qarxida waaweyn waa annagana tumaalnimadii waana la ku caayo hadda waxay rabaan suuq ayaga inuu bannaanaada moogta sida ma arki jirinoo niman oo badarka marka la cunaayo andhuuf ku tufaaxay saad unoo cunay wixii la suuqaa jira moogta saas asuu kulle candhuufaa ku jirta kuwa iyaguna ka dheereeyaa jiro waxyaala kala sameeylaan taasaa ku filan calaa kulli xaal wadan gaale in la aada lama ogola diinta islaamku waa sidaas su-aalo kalea la keeni karaa oo ah sheekh waa kadaa oo meel hebla gaala xukunto waa kaasoo meel hebla gaala xukunta gaaladu way xukuntaa hadda maalan wadamada qaarkooda hadda ay dib u qabsadeen weli kaaladii haysataa laleeyahy kuwii mar hore qabsadeen oo wakiiladii ugu daaheen waxaa leeyahay maya dowladdaas caadi waa waxay caadi ku yahay waa isku wada mide ilan gaalnimo lagu wada xukumayaa sooma ya hadda haddii la yidhaahdo maaragtay maalan xaramaynka dowladda ka dhisan waxay la mid tahay midaan ka dhisan maaragtay ingiriiska waxay u kala duwan yihin ya laakiin dhegaysama kartiin soo maha midaan ilan qabsigoodii mar horay milkiyeen markaasay waxay yihiin maaragtay niman oo waa madax bannaanta ay yidhaheen ay u dhiibteen soo ma marka waa isku mide qofka haddaad tiraa dawaan ka jiriha dawada wax badanoo la isku daawayaa jira haddaad aadaysood leedaha anugu aadaano shuruuddaasa un ku hortaal qofaan diinteedii aqoonin oo isla markaasna iimaankoodu liitoon ilaa dadka waxa lagu fasaadiyo laba ugu badan marka shaydaanku uu dadku wax ku fasaadinayo waxa ugu badan الشهوات والشبهات الشهوات واحد وقبت بهذا إيمان قوي الشبهات علمي يقين تجاري جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون marka عموما واسداس ويحكوا هذا تفاصيلا ووقت كذا لو تقال لكن انت صرت قبس وبالله التوفيق أي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق